السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنجنير خالد أحمد تامع فودادي oo in la mar labaad ku soo dhawaada Soomaalidise bahda Soomaalidise inta ka bacdi waxaan ku sii soconayaa casharkeennii xisaabta ahaa aynu hore u soo dhigan jirnay darsiga maanta aan dhiganaynaa waa xisaabteennii halka god iyo labada god ahayd oo maanta aan ka dhigay laba god iyo laba god insha Allah haddii Ilaah ogolaado xisaabta horena waa laba god ta dambana waxaan ka dhigi doonaa insha Allah laba god xisaabta marka maanta aan dhiganna waa iyadii oo laba goda way sidaan hore u soo sheegnay xisaabtan noocan ah waa markay dheer tahay xisaabtani laakiin sida ugu fudud ee looga shaqeyn karo xisaabteena waxa weeyaan iyadoo xisaabtaasi la iskor iyo hoos dhigo oo la kala sareysiyo aan tirada hore soo qorto anigoo waxa la waxaan ka bedelayaa jiriseeda ayaan qorayaa waan dhinac dhigaya labada tiro waa 28 28 ka wasana ayaan qorayaa calaamadan qoraya sugeynta inta ka bacdi waxaan soo hoos qorayaa tiradan u geynayo labada tiro markaas si toos ah ayaan sugeynayaa sidii nidaamkan hore soo baranay ee sugeynta waa 8 loo geeyay maxay hal labadaas waa isku beegan yihiin labadii isku beeganba goolidooda la isugu geynaya 8 haddii xabad loo geeyo waa tiradu waa 9 haddii laba hal loo geeyana tiradu waa 3 waa tusaaleena koowaad ee xisaabteena maanta waa yahay tusaalaha labaad marka waxaad ogaataa tirooyinkaasi waa maxay taasi waa koowaad tanna waa tobnaad tirooyinkeena qaybta hore tirada dambe taasi waa koowaad tanna waa tobnaad marka koowaad iyo koowaad baa la isku beegayaa tobnaad iyo tobnaadna waa la isku beegayaa cishadii hore waxaan soo dhiganay iyadoo tobnaad ay taa hoose ka maqan tahay oo ay tasara tahay koowaad iyo tobnaad hoosana tahay koowaad kaliya tasaadiraad dhinacaasi ayaa lagaga beegay maanta labada tiro tanna waa tobnaad bay ku joogtaa tanna tobnaad bay ku joogtaa saadiraad labadooda waa la isku hoos beegaya 28 haddii 12 loo geeyo tirada soo baxaysa wadarta guud waa 9 way mid kale aan raaciyo ta kale aan raacinaya waxa weeyaan iyaduna 3 goda tirada hore oo iyaduna 3 goda haddiiba tirada hore tahay 3 god ta dambana tahay 2 god ama 3 god sidee baan isugu beegaya way ugu horreyn waxaad qorataa tiradaada hore iyadoo waxa la waxaad ka bedeshay aysan jirin tirada hore waa 430 calaamadda kala qaybinaysa 430 tiradeeda dambana waa 420 sidaa daraadeed god walba godkiisa ayaan ku beegayaa waxaan uga jeedaa tiradaas waa koowaad waxaan ku beegayaa tirada hore koowaadeeda tiradani waa tobnaad waxaan ku beegayaa tirada hore tobnaadkeeda adaatan tiradu sanay noqonaysa afartu waxay ku beegmaysaa siirooga sababtoo ah waa koowaad iyaduna waa koowaad tan waa tobnaad tanna waa tobnaad sidaa daraadeed labadoodaasna way isku beegmayaan godka boqolaadka isaga waa madhnaanaya godkaasi boqolaadku wuu madhnaanaya isugeyn caadi ayaan marinaya waa 0 loo geeyay 4 wadartu waa 4 waxa la wuxuu ka bedelayaa ma jirto 3 haddii aan 2 u geeyo waa 5 afartanna wax ku beegan ma jiro sidaa daraadeed waan la soo degaya iyadana haddii 430 aan u geeyo 420 waxay noqonaysaa 450 xasuusnow cishadii hore markii aan sharaxayay tirada aan tusaale u soo qaado waxaan sheegay labadan tiro in ay yihiin laba tiro oo kala god ahaan kala duwan inuu godkan yahay god koowaad oo sheegaya 4 qoriyo kaliya ta xagga godkan yahay god tobnaad
oo sheegaya 2 tobnaad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xagga hoosena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 god wal xabad iyo xabad soo loo kama koobna labada uu ka kooban yahay mid walba 10 buu taagay ka hore 10 buu taagay ka kalena 10 buu taagay sidaa daraadeed waa 20 godka labaad isagu wuxuu sheegayaa maxay tobnaad 2 tobnaad inay tahay xagga godkan hore uu ka sheegayo koowaad oo 4 xaba inay tahay uu sheegayo godkaas muxuu sheegi doonaa godkaas waa boqolaad sidaa daraadeed wuxuu sheegi doonaa ama uu inoo sheegayaa inay tahay 4 boqolaad boqol iyo boqol iyo boqol iyo boqol afartaa boqolaad oo la isu geeyay ayuu inoo sheegaya godkaas marka waa boqolaad kan waa tobnaad kana waa koowaad tirooyinkan maanta isu geeyna waa labada tiro marna iyadoo labada tiro hooseeyaha iyo sareeyuhu istire leeyihiin ayaan isu geynay marna isagoo sareeyuhu badan yahay intaas ayaan ku joojinayaa casharkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.